السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، waxaad inoogu soo dhowaatay bishii Ramadaan ee barakada iyo khayrka badnayd. waxaa la gudboon qofka muslimka ah ee waqtigan soo gaadha inuu bisha Ramadaan ugu diyaar garoobo arrimo aad iyo aad muhiim u ah. arrimahaasi oo ka dhigaya mid ajar iyo khayr hela haddaanu Ramadaan gaadhin. haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala Ramadaan gaadhsiiyana ku caawinaya inuu ka faa'iidaysto Ramadaan khayrka iyo barakaadka iyo karaamaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala u geliyey. arrimahaasi waxaa kow ka ah alcaziimatu asaadiqa cala iqtinaami awqaati Ramadaan bilkhayraati waataacaat. qofka muslimka ah intaanu Ramadaan gaadhin waa inuu go-aansado ou la yimaado go-aan qalbigiisa ka soo go-a inuu kaga faa'iidaysto bisha Ramadaan khayr iyo wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhoweeya iyo ka sahay qaadashada waqtiyada barakada badan uga sahay qaato ilaa liqaa'i Illaahi subxaanahu wa tacaala, ilaahay la kulankiisa. go-aanku waa asalka iyo aasaaska acmaasha saalixa ah iyo tan xun labadaba. qofka khayr go-aansada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa taasi uu ku ogaado, rabbi subxaanahu wa tacaala khayrkaasuu waafajinaya, una fududaynaya, kuna caawinaya. rabbi subxaanahu wa tacaala ugu kaalmaynaya. walow calima allahu fiihim khayran la asmacahum. hadduu ilaahay qulubtooda khayr ku ogaan lahaa iyo niyaad iyo go-aamo wanaagsan iyo inay qulubtooda u diyaarsan tahay iimaanka iyo daacada iyo acmaasha saalixa ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigi lahaa kuwa qur-aanka maqla maqal ay ku hanuunaan oo sabab u noqda iimaan iyo istiqaamo iyo toosnaan. nabiyuna muxamed calayhi afdalu salaati watasliim, waxyaabaha ilaahay uu ka baryi jiray ee weydiisan jiray in badan waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arsaaqo go-aan uu go-aansado wanaagga samayntiisa iyo sharka iyo xumaanta ka gaabsashadiisa. famin ducaa'ihi calayhi salaatu wasalaam as'aluka alcaziimata cala arushd. ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaan go-aan u lahaado hanuunka iyo toosnaanta. ayuha alcabdulmuslim, maanta haddaad go-aansato bisha Ramadaan inaad dadaasho oo waqtiyadeeda khayrka iyo barakada badan aad ka qaniimaysato, oo ay dhacdo inay geeridu ku timaado, waana dhici kartaa iyadoon Ramadaan la gaadhin, ilaahay subxaanahu wa tacaala go-aankaasi wanaagsan iyo niyadaasi saalixa ayuu kugu ajar siinaya. qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam fima rawaahu albukhaariyu wa muslim: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. أدونكو هدو حنوصدو أما بس وصعداله وحلو قرابو الرسولك عليه الصلاة والسلام أعماشو سمين شري مركو عافمات كقبي أي وهامذا صعداله هين النقي وأيو وحني يسنا hadduu ilaahay caafimaad siiyo safar ka mashquuliyana aanu gelin acmaashaa saalixa inuu sameeyo. go-aankiisa ayaa sidaasi ahaa. wa qaala calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaahu jaabirun canhu walxadiidu fi lbukhaariyi wa muslim: ina bilmadinati larijaala ma sirtum masiira walaa qaطactum waadiya ila kanuu macakum. قال الصحابة وهم بالمدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر. نبي عليه الصلاة والسلام سفر جهاد بو قال الصحابة قار با لسعودي
intii la socotay buu la hadlay wuxuu yidhi masaafo kastoo aad socod ku goyseen tog iyo doox kastoo aad ka tallowdeen rag madiino jooga ayaa ajarka aad ka hesheen mid la ka helay saxaabadu way yaabeen waxay dhimeen iyagoo madiino jooga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu iyagoo madiino jooga go-aankooda ahaa inay jihaadkaasi u baxaan oo camalkaa saalixa ay sameeyaan laakiin cudurdaar baa reebay sida xanuun oo kale ilaahay subxaana wa tacaala go-aankoodii fiicnaa caziimatuhum asaadiqa wa niyatuhum asaalixa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsaaqay walihaada dadkii saalixiinta ah ubadkoodi iyo dadkaba waxay u dardaarmi jireen inay khayrka niyeystaan intaanay wakhtigiisaba gaadhin qaala alimaamu axmedu raximahu llah libnihi ya bunaya inwi lkhayr fainaka laa tazaalu bikhayrin maa nawayta alkhayra inankayga khayrka weligaaba niyeysa buu ihi oo qalbiga ka go-aanso inaad samayn doonto khayr ka suuli maysid inta aad khayrka niyeysato fa anta bikhayr niyada saalixa iyo go-aanka fiicani sidaasi ayaa ajar loogu helayaa haddii aanad camalkii aanu kuu suurtoobin oo cudurdaaru kaa hor istaago haddii kalena ilaahay subxaana wa tacaala niyadaadaasi saalixa ah sababteed wuxuu ku waafajinayaa khayrka samayntiisa wayuyasiruhu lak wayuciinuhu calayk oo kuu fududaynaya ilaahay subxana wa tacaala waana kugu kaalmaynaya arrinka labaad wuxuu yahay yaa cibaad allah ay tahay ramadaan horteed inaynu samayno an nukhira min altawbati walistikfaar inaynu toobadkeenka farabadino iyo istikfaarta ilaahay subxaana wa tacaala in badan inaynu dembi dhaaf weydiisano an nukhira min qowl allahuma kfir lana allahuma inaa nastakfiruka wanatuubu ilayk khalad iyo gaf waxaynu isku ognahayna ilahay inaynu uga toobadkeenno sababta aynu taa u leenahay waxay tahay yaa cibaad allah ramadaan waa shahru lkhayraat walbarakaat walkaraamaat alcadiima khayr iyo barako fara badan buu ilahay ramadaan geliyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu geliyey arrimo waaweyn oo addoomihiisa uu ku maamuuso bishaas wa acdamu maa yuxramu bihi alcabdu alkhayru walbarakatu walkaraamatu almacaasi waxa u weyn ee addoonku uu kaga qado barakaadka ilaahay iyo khayraadkiisa iyo karaamaadka iyo maamuusiyada rabbi waa macsiyada weeye macsiyada ayaa sabab u ah waayo macsiyadu addoonka qalbigiisay madoobeynaysaa ay daboolaysaa waxay ka dhigaysaa midaan khayrka arkahayn waxay ka dhigaysaa midaanu khayrku u dhadhamahayn waxay ka dhigaysaa midaan khayrka jeclayn aan u boholyoobahayn waxay ka dhigaysaa midaan khayrka u soo jeedin kamaa qaala rabbuna subxaanah kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtoodii waxaa daboolay oo sida daxalku birta u dulfuulay xumaanihii ay samaynayeen qalbi ay xumaani dahadho ay dabooshay muxuu arki doonaa muxuu dhadhamin doonaa muxuu jeclaan doonaa waa qalbi buka oo xanuunsanaya walihaada ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay aayado badan oo tilmaamaya istikfaarta iyo toobadkeenku inay sabab u tahay in addoonku karaamaadka ilaahay inuu helo nabi llaahi sulaymaan ilaahay maruu ka hadlayay wuxuu yidhi rabbi ikfir lii wahab lii mulka laa yanbagii liaxadin min bacdi undur kayfa qarana bayna alistikfaar والفوز بمغفرة الله وبين الوصول إلى هذه الكرامة العظيمة وفيرس سيدو حريريي إنه إلهي الدنب داف والدنب قو كما يروح يينو قال كرامة وينو إنه إلهي سيو ملكي آن وهبونين عيد ساكا دنبيسا وعيد ساكا دنبيسا آني قاري تاسم حي تلماميسا karaamaadka iyo khayraadka iyo barakaadka adduunyo
waxa uu weyne lagu gaadhay ee sababta u ahi waa toobadkeenka iyo istikfaarta. waxa uu weyne u daran ee addoomuhu ay kaga qadaana waa macaasida iyo dembiyada. ilaahay subxaana wa tacaala aayado badan buu macnaha noocaasi ku sheegay. walihaada u fiirso markay caaisha radia allahu canha rasuulka weydiisay haddaan ogaado habeenka leylatulqadrigu uu yahay maxaan idhaahdaa, sir weyn baa ku jirta ducada uu rasuulku caaisha u sheegay. qulii allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana. leylat lqadri fiiha khayraat wa barakaat wa karaamaat cadiima. qof macaasi ay derdertay oo qalbigiisa xanuun iyo bukaan ay ku riday oo indhatirtay ama indhadarro ay u sababtay, khayrkaasi u muuqan maayo, qalbigiisuna uma soo jeedo, una dhadhami maayo. walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa qura u tilmaamay caaisha waa inay habeenkaasi farabadiso inay ilaahay cafis weydiisato. allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani. cafiska ilaahay markaad hesho ayaa barakaadka iyo khayraadka iyo wanaagyada iyo karaamaadka ilaahay leylatulqadriga iyo guud ahaan ramadaan u geliyeyna markaasaad helaysaa. markaa naftada daahiri oo nadiifi. arrinta saddexaad waxay tahay waa alikhaaru min adducaa. inkastoo aynu dadaallo addoommo ducaafaa oo caajizuuna baynu nahay oo laa xawla lana walaa quwata ila billah, wax ilaahayna waafajiyo wanaaga mooyaane wax kalama samayn karno, waxaanu ilaahay noogu kaalmaynna ma fulin karno. walihaada khayrka adduunye ka aakhiro labadaba waa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka barino. intaanad ramadaan gaadhin ilaahay in badan weydiisa ilahay ramadaan inuu ku gaadhsiiyo. waxaa kalood ilaahay subxaana wa tacaala weydiisataa an yuciinaka cala aliqtinaami min awqaatiha almubaaraka, inuu ilaahay kugu kaalmeeyo ku waafajiyo ka qanimaysiga wakhtiyada ramadaan ee barakaysan. faqad rawa tirmidiyu fi sunanihi can mucaadin ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaala lahu ya mucaadu inii uxibuka fi llah falaa tadacana an taqula dubura kuli salaati allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. mucaadow ilaahay daraaddii baan kuu jecelay, ha ka tegin salaad kasta dabadeed inaad tiraahdo ilaahay ou igu caawiyo igu kaalmee dikrigaaga, inaan farabadiyo xuskaaga, mahadnaqaaga, ilaahay ou cibaado wanaag inaan ku sifoobo igu caawi oo igu kaalmee. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam laba arrimood buu inagula teliyey. arrinta koowaad waxay tahay waxaa nafciyo waxtari inoole inaynu ku dadaallo, iyo awooddeenna iyo xeeladeenna kuma gaari karnee ilaahay inaynu weydiisanno alicaanata calaa dalika, arrinka inoogu kaalmeeyo. faqaala calayhi الsalaatu wasalaamu fima rawaahu muslimu can abi hurayra ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah. waxaa nafciyo waxtar kuule ku dadaal oo cumrigaaga iyo wakhtigaaga ha ku khasaarinin waxaan waxtar ku lahayn. ilaahayna subxaana wa tacaala kaalmo weydiiso, liannahu laa xawla laka walaa quwata ila billah. walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nebigii ilaahay ah oo dadka ilaahay ugu yaqaanay, ugu cilmi badnaa, ugu khayr jeclaa, ugu khayr samayn badnaa, ilaahay in badan uu weydiisan jiray alhuda iyo ilaahay hanuunka inuu u fududeeyo. marka ducadaasina raad weyn bay ku yeelanaysaa ramadaan haddaad gaadho waxaad samaynayso. arrinta afraad waxay tahay waa tahyi'atu nafsi lishahri ramadaan. waad aragteen oo ramadaanta waxyaaba badan baa loogu diyaar garoobaa, shaqooyin badan oo adduunyo oo ramadaan la fulin doono ayaa ramadaan ka hor loo sii diyaar garoobaa. waad ogtihiin dadka dharka iibiyo iyo agabka kale ee dadku ay isticmaalaan, ramadaan 2 bilood ama 3 bilood ka hor baa safarka ay ramadaan ugu talagaleen iyo ciidda ramadaan ayay sii diraan. wahaakada qof waliba qorshe adduunye ayuu noloshan u ka leeyahay.
qorshahaasoo uu go-aansaday oo uu dejistay asbaabtiisiina uu la yimi khayrka iyo barakada iyo karaamaadka ilaahay bisha ramadaan uu geliyey ayaa u mudan in nafta loo diyaariyo. naftaada waa inaad sii geliso shawq, boholyow ay u boholyoobayso gaadhitaanka bisha ramadaan, oo aada iyo aad ay u jeclaysanayso inay ramadaan ay gaadho, iyo degdegsi ay degdegsanayso arrinka noocaasi ah, iyo inay samayso bisha ramadaan maa yurdi illaha subxaana wa tacaala. waxyaabaha taa kugu caawinayn waxaa ka mid ah an tacrifa qadra hada almawsim alcadiim, inaad garato waktiga aadka u weyni qiimaha iyo qadarka ilaahay agtiisa uu ku leeyahay. haddaad sidaa yeesho nafta aad sidaa usii diyaariso xusuusnaanta bisha ramadaan, jacaylka aad u qabtay inaad gaadho inaad ka faa'iidaysato, ay naftaada arrimahaasi kusoo noqnoqdaan, ramadaan waxaad gaadhi doontaa adigoo u diyaarsan ka faa'iidaysiga wakhtiyadeeda qiimaha badan. halku dhagaaguna uu yahay wacajiltu ilayka rabbi litardaa, waan kuu soo degdegay rabbiow si aad raalli waxa weeyaan aada iiga noqoto. ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaasi qiimaha badan haynagu arsaaqo. rabbina waxaynu ka baray in ramadaan ina gaadhsiiyo. hadduu ina gaadhsiiyana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina waafajiyo ka faa'iidaysiga wakhtigaa qiimaha badan. aqulu qawlii hada waastaqfiru allaha lii walakum. alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin. slى allahu عlى nabiyina muxamedi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin. ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah, waxyaabaha inala gudboon ramadaan horteed waxaa ka mida tacalumu fiqhi siyaam. ramadaan cibaadaad fara badan ayaa ilaahay jideeyey, kuwa faral iyo kuwa sunnaaba. cibaadaduna cilmi kama maaranto, oo laba shardi bay leedahay in ilaahay daraaddii loo sameeyo. niyada waa la iman karaa xataa qofka aan aqoon diineed lahayn. shardiga labaad se cilmi buu ku xidhan yahay, oo ah cibaadaadkaasi inaad u samayso sida ilaahay subxaana wa tacaala u jideeyey. oo culimmadu markay daacada macnaynayaan ay fasirayaan waxay idhaahdaan waa imtithaalu awaamir illaahi wa nawaahihi cala alwajhi almashruuc. daaco ilaahay in badanuu ina amray, macnaheedu waxa inaad u hoggaansanto wixii ilaahay ku faro aada samayso, wuxuu ilaahay kuu diidayna inaad ka fogaato aad ka dheeraato, adigoo labadaba ula imanaya sidii loo sharciyey loo jideeyey. haddii kale waxaad samaynaysaa camal aan laguu jidayn ama sidii loo sharciyey si aan ahayn baad u samaynaysaa. natiijaduna waxay noqonaysaa siduu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun. qofka sameeya camal aan shareecadan iyo diintan nebi maxamed loo soo dhiibay waafaqsanayn laga aqbali maayo ee waa lagu celinaya. arrimaha inala gudboon waxaa ka mida yaa cibaad allah, qabla ramadaan altakhtiiط almusbaq liliqtinaami min shahri ramadaan, inaad qorshe usii yeelato ka faa'iidaysiga bisha ramadaan. soom nooceeba kuu qorshaysan inaad soomto. dad badan baa sooma, laakiin soomkoodu waa kala duwan yihi. qaar buu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam annahu laysa lahu min siyaamihim ila aljuucu waalcatash. soomkooda gaajiya haraad mooyaane wax kale inaanay ka faa'iidin. ayu sawmin turiidu an tasuuma fii ramadaan, waxaad doonaysaa inaad ka soomto un intii markii hore xalaasha ku ahayd ee maalinka ramadaan lagaa mamnuucay, mise waxaad doonaysaa inaad soomto soom dhammaystiran oo xubnahaaga oo dhami ay soomaan, laga bilaabo qalbiga, carabka, dhagahaaga, indhahaaga, gacmahaaga, lugahaaga, gurigaaga iyo calooshaada. maxaa kaaga qorshaysan salaatuleylka ramadaan? hadda qorshe usii yeelo. man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembihi buu rasuulku alayh salatu salaam. qur-aanka akhrintiisa maxaa kaaga qorshaysan? imise jeerna dhamaysaa kaaga qorshaysan, mise adoo bilaa qorshaabay kuu soo gelaysaa ramadaan, dabeetana bilaa qorshahaasi oo bilaa camala bay kaaga baxaysaa. dabeetana dadku waa laba bisha ramadaane, raabixuuna iyo khaasiruun, kuwo macaashay
oo faa'iido iyo kuwa khasaare khaasiriintaad ka mid noqonaysaa mise raabixiinta. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi raqima anfu imri'in dakhala calayhi shahru ramadaan fakharaja walam yukfar lahu waa khaasir. kay ramadaan usoo gashay ramadaan ay baxday isagoon samayn asbaab ilaahay ugu dembi dhaafa, darajooyina rabbi subxaana wa tacaala uu kor ugu qaado. sadaqada maxaa kaaga qorshaysan? dacwadda iyo khayrka dadka in la gaadhsiiya maxaa kaaga qorshaysan? cumra fii ramadaan aad bay u fadli badan tahay. rasuulku wuxu uhi cumratun fii ramadaan tacdilu xajatan maci. haddaad haysato xoolo iyo xoog aad ku gaadho xaramka ilaahay, qorshaama kugu jirtaa ramadaan inaad cumraysato. cumro ramadaan la cumraysta waxay u dhigantaa buuri rasuulku xagga ajarka xaj qofku uu xajiyey isagoo nebi maxamed calayhi salatu wasalaam la socdo. laabudda min takhtiiطin musbaqin liiqtinaami shahri ramadaan. sida shay waliba qorshe uu ugu baahan yahay ayaa ramadaanka faa'iidaysigiisuna qorshe ugu baahan yahay. waxyaabaha ramadaan inaad ka faa'iidaysato ood aadna ugu diyaargaroodo kugu caawin kara waxaa ka mid ah ya cabdallah qiraa'atu siyari saalixiin. dadkii hore wanaagsanaa taariikhdooda inaad akhrido. kayfa kaanuu fii ramadaan, ramadaan siday ahaayeen? nebi maxamed ka bilow calayhi salatu wasalaam, saxaabata rasuulillah, a'imadii ka dambeeyey siday qur-aanka u akhrin jireen, siday u tukan jireen, maxaa xaaladooda iyo noloshooda iska bedeli jiray bisha ramadaan. takhdiidka madluubka ah ee la rabo ay tahay inaad sii qorshaysto waxaa ka mid a maxaad naftaada u qorshaysay xagga isbedelka? maxaa go-aan kuwa inaad naftaada aad ka bedesho, iimaankaaga inaad ka bedesho, khushuucdaada iyo daacadaada iyo acmaasha saalixa ah, macaasidaada iyo khaladaadka iyo gafafka aad isku og tahay, taqsiirka iyo gaabinta aad kaga sugan tahay farallada iyo sunnahaba. waxyaabaha inala gudbaan waxaa ka mid a qabla shahri ramadaan inaynu nafta ramadaan ugu diyaarinno inaynu cibaadaadka kusii dadaallo intaan ramadaan baan la gaadhin. tahiyatu nafsi bilcibaadaat qabla alcibaadati alkubraa wa amrun warada bihi sharcu wa habata fi lkitaabi wasunna. in nafta cibaadaadka waaweyn loo diyaariyo loogu diyaariyo cibaadaad ka horeeya oo cibaadada ka darajo hooseeya waa arrin shareecadu ay la timi kitaabkiiyo sunnaana ku sugan. waa sababta salaadaha faralka loogu sunneeyey rawaatib qabliya, sunnayaal salaada ah oo ka horeeya oo had iyo jeer aale hortood la tukado. wahaakada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bisha inta u badan uu ka soomi jiray waxay ahayd bisha shacbaan. culimadu arrintaa macnaynteeda hadallo kala duwan bay ka yidhaahdeen. waxaanad moodaa inay u xoog badan tahay annahu kaana yafcalu dalika tahiyatan linafsi lishahri ramadaan, inuu arrintaa u samayn jiray diyaarin nafta u diyaarinayo bisha ramadaan. xataa salaatuleylka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukanayo 2 ragcadood oo kooban oo nafta salaada dheer uu ugu diyaariyo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u samayn jiray oo uu tukan jiray. marka cibaadada ku dadaal intaanay ramadaan kuu soo gelin iyadoo qalbigu uu sii dabcay oo qalbiga khushuuca ay sii gashay iyo tawajuh ila allah inuu xagga ilaahay u jeestaa iyo xubu taaca walkhayr. ramadaan ha kuu soo gasho laakiin qalbigii oo qalalan oo khayrkaan uma soo jeedin hadday ramadaan kuu soo gasho xataa haddaad dadaasho diyaarintiisa waqti qaadanaysa. marka ramadaan horteed qalbiga diyaariya cabdallah. waxaynala gudboon an nusaaxiba asaalixiina alakhyaara qabla ramadaan wa fii ramadaan wa bacda ramadaan. inaynu saaxiibba ka dhigano dadka wan wanaagsan ee ramadaan xusuusan ee innagana ina xusuusinaya ee u diyaargaroobaya inaguna caawinaya ramadaan inaynu diyaargarowno. wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashi yuriiduuna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأرن باهن نفط إن لقوا لددالو ونفط ما تشعلا إن لقوا صبر سيو إن ذاتك أهل الآخرة يهم قود وين ويا يهم الآخرة
addoome ilaahay oo saalixiin oo ilaahay lagu xusuustaa in lala saaxiibo hayntooda adduunya ha yaraato mansibkiiyo meeqaanka dadka dhexooda ay ku leeyihiinna haba hooseeyo ilaahay agtiisa kay ku leeyihiin baa weyn ka la saaxiibaana la saaxiibkaa ula saaxiiba buu wax ku helayaa kuwa ilaahay caabudaya ee ilaahay xusaya ilaahay baryaya gelin hor iyo gelin dababa kuwa la saaxiib buu ilaahay indhaha ka lalinin adoo quruxda dhalaalka adduunya doonaya ilaahay addoomiisa cid ka taqaanaa ma jirto dabciga dadka ayaa sidaas inay dadka wanaagsan indhaha ka laliyaan oo dhalaalka iyo quruxda adduunya manaasibteeda iyo maalkeeda iyo guryaheeda iyo fooqyadeedu ay la weyn yihiin ilaahay wuxuu inooga digay inaynu la fadhiisano la saaxiibno dadka qafladaysan ee quluubtoodu ilaahay ay kasii jeeda daarul aakhirana ay lowday daacada iyo khayrkana ka maran ama uu ku yaryahay walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina kuwa hawadooda raacay doonista naftooda ka doortay ilaahay wuxuu doonayey ee danta u ahaa adduun iyo aakhiraba watabaca hawaa wa kaana amruhu furuta ilaahay baynu subxaana wa tacaala ka baryayna inuu ramadaan ina gaadhsiiyo inana waafajiyo inaynu lafaha u diyaarino ramadaan intaynaan gaadhin ilaahay baynu ka baryaynaa inuu ina waafajiyo ka qanimaysiga iyo ka faa'iidaysiga bisha ramadaan allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba annar allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ووفقهم يا ربنا للعمل والحكم بدينك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم افتح لنا بركات السماوات والأرض يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين